صاحب الملك الصهد جبتون ديال قربه وركنا وتلاذو تاريخ ويكون بيغنتا 6 جولاي سنة 2022 وركنا بدأ وقوة وين وحا قيبكا باش عالمka warkama dambaysa ka soo saartay doorashada Soomaaliya iyo go'aan la duldhigay ra'iisul wasaare Roble hadaba warka ka soo baxay baasha caalamka waxay ka yiraahdaan arrinta doorashada ayaa idin soo gudbin doonaa midowga musharaxiintana waxay dalbadeen in farmaajo laga mamnuuco in dalka xil dambe uu ka qabto go'aan ka soo baxay midowga musharaxiinta waa idin soo gudbin doonaa Yusuf Dabageed oo sheegay in doorashada aysan ka dhici doonin magaalada Beledweyne ilaa inta laga sameeyo hal arin oo dalbaday haddaba maxay tahay arinta xiisada Beledweyne ka jirta Hirshabelle oo shuruud adag ku xirtay wada hadal lala galay jarnaalka talaagada ah wasiir Dubah oo si weyn lagu weeraray marhabaabinta iyo raaciyo caamka iyo aragtida dawladda qalafsan u baahinayo iyo Abiy Ahmed oo hanjabaad la yaab leh soo saaray kadib guuldaradii ka soo gaartay dagaalkii ka dhacay Tigreega qodobadaasi kuba kale oo muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa wararkeena qayb ka noqo saaxiibada ku xiray channelkeena subscribe hada gambalelka la taabasay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada iyo xogaha gaarka ah halkan ku baahiyo saaxiibada soo wax wanaagsan mar kale soo dhawaada baasha caalamka ayaa war la yaab leh ka soo saartay shirkii doorashooyinka Muqdisho ka dhacay arrimaha doorashooyinka ay go'aano la duldhigay ra'iisul wasaare Roble war-saxaafadeed si wada jir ay u soo saareen xubnaha beesha caalamka ayaa waxa lagu soo dhaweeyay shirkii dhawaad Muqdisho ay ku yeesheen madaxda golaha wada tashiga qaranka oo lagu arrinsanaya hanaanka doorashada iyo dardargelinta heshiiskii hore lagu gaaray magaalada Muqdisho wakiilada beesha caalamka waxa ay dhinacyada kala duwan ugu baaqeen inay ku baxaan heshiiska si aan dib u dhac weyn loogu soo gaarin waxaana dhinacyada beesha caalamka sidoo kale ugu baaqeen fulinta heshiiska la gaaray lala qabto doorasho wada ogol ah oo ku midaysan dhamaanba dhinacyada Soomaaliyeed ayna qasabtay in jadwalka doorashada la dhaqan geliyo saaxiibada caalamka ee Soomaaliya waxay soo dhaweynayaan shirkii guusha ku soo dhamaaday ee golaha wada tashiga qaranka ee dhacay 29 Juun waxaan bogaadinaynaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada ay doodihii adkaa iyo waliba heshiiskii la gaaray inay noqdaan kuwo fula jawiga shirka wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan xiriir ayaa la sameeyay faamilada iyo golaha midowga musharaxiinta sidaas ay tahay dhamaantooda ayaa ku qanacsan horumarka laga gaaray doorashada ayaa lagu jiray qoraalka waxa hoosta ka xariiqeynaa in golaha wada tashiga qaranka oo go'aano muhiim ah ka gaarayo jadwalka doorashada iyo doorka kooxda taageersan farsamada ee doorashada loola ballan qaaday in si diiran u shaqeeyaan wakiilada dowlad goboleedyada dhamaantood ayaa lagu baaqay inay fuliyaan heshiiskan go'aan walba oo la gaara waxa muhiim ah fulintiida waa in jadwalkaas sidiisa ku dhaqan galaa sidoo kale la ilaaliyo qodobbada haweenka ee 30% waxaan rajaynaynaa in ballan qaadida iyo tallaabooyinka lagu xaqiijinayo qoondada haweenka ee 30% inay noqoto mid fusho oo dhaqan gasho ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale waxay saaxiibada beesha caalamka soo jeedin madaxda iyo hay'adaha kale ee shaqada kule arrimaha doorashada inay si joogto u yeeshaan wada xaajoodiyo wada shaqeyn iyo wax ku ool si xal looga gaaro caqabadaha mar walba ku soo gudboonaanaya doorashooyinka waxaan ku qanacsanahay hanaanka doorashada degdega ah iyo waqtiga la qabtay waxaan Soomaaliya ka caawin doonaa dhaqaalaha iyo waliba xasiloonida iyo barwaaqada saaxiibada caalamka waxay diyaar u yihiin taageerida dhanka dhaqaalaha ee doorashada Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalkan si wada jir waxa uu soo saaray dawladaha iyo ururada caalamiga ah ee ka howlgala Soomaaliya sida howlgalka midowga Afrika AMISOM Belgium Canada Shiinaha Denmark Djibouti IGAD Ireland Talyaaniga Japan Kenya ururada Islaamka Carabta Holland Norway Qatar Ruushka Sudan Sweden Switzerland Turkiga Uganda boqortooyada midowga Britain dawladda Mareykanka iyo qaramada midoobay ayaa si wada jir qoraalkan soo saaray ayagoo ra'iisul wasaare Roble ugu baaqay in uu dib u dhac dambe laga yeeli doonin oo fuliyo heshiiskii doorasho oo 10 Oktoobar inay noqoto marka ugu dambaysa la dooranayo madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaare Roble ayaana beesha caalamka sheegay in bixinta dhaqaalahooda ay ku xirnaan doonto sidoo u maareeyo doorashada midowga musharaxiintan waxay dalbadeen farmaajo in laga mamnuuco in dalkan xil dambe uu ka qabto hal sabab darteeda sidoo kale xitaa waxay dalbadeen in laga reebo doorashada
war saxaafadeed ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta ayaa ugu horeyn walaac xoog leh ku muujiyay xaaladda nololeed iyo weliba wararka la xiriira dhalinyarada tababarhaan loogu qaaday wadanka Eritrea kuwaas oo xaaladooda ay soo tarayso waxaana la soo sheegayaa inay ka qayb galaan dagaalo ka dhacay gobolka Tigray ee Ethiopia wararka la xiriirinayo joogitaanka dhalinyaradaasi Ethiopia iyo ka qaybgalka dagaaladii sokeeye waxaa xaqiijiyay hay'adda xuquuqul insaanka qaramada midoobay iyo madax ka tirsan dawladaha caalamka oo u kuurgalay dagaaladaasi sida la wada ogsoon yahay waxaana dacwad ay soo jeediyay waalidiinta dhalinyaradaasi ay codsadeen in madaxda dawladda federaalka ay ka hadlaan oo ay sheegaan waalidiintooda raqi ruux halkay ku dambeeyeen xaqiiqda jirta waxa ay tahay in ummadda Soomaaliyeed laga qarinayo xaaladda dhalinyarada ay ku sugayeen ayaa lagu yiri qoraalkan lagu baayay bogga xisbiga Ilays oo hogaamiye Cabdiqaadir Cusable ayaa nasiib darro lagu tilmaamay in madaxweyne Farmaajo ka dhaga fureystay qayladhaanta dadka shacabka ah oo ay dalbanayaan in dawladdu ay keento dhalinyaradaas hadii ay nool yihiin hadii ay dhintaan dawladdu ay sheegto asagoo ka walwalsan dacwadaha ku soo badanaya iyo barnaamijyada ku aadan arinta ayuu ra'iisul wasaare Roble u sheegay inuu magacaabo guddi loo arkayo magacuyaal kuwaas oo jiritaankooda sax ahayn dadka mas'uuliyiinta loo magacaabay maamulka iyo waliba siyaasadda iyo dadka ciidamada waxay in la kala saaro Farmaajo marna kama saari doonto aamusnaantiisa dhalinyaradan ee maqan kuna maqan dalka Eritrea kuwaas oo waalidiintooda ay laayihiin ugu dambeyn golaha midowga musharaxiinta iyo war-saxaafadeedkooda shacabka kaga dalbadeen in madaxweyne Farmaajo ay ku eedeeyaan in yahay nin fashilmay ku tagrifal awoodeedna uu sameeyay muddada xafiiska joogay iskala haro tartanka doorashada uusan ka qayb galin mas'uuliyad dambana aan lagu aminin intuu xafiiska uu joogo golaha midowga musharaxiinta waxa ugu baaqaya madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday haddana uu ilaa hadda uusan ka hadlin xaaladda dhalinyaradaasi in mar kale dalka uusan qaban xil kale mar kale ilaa lagu awaal marin oo la garahawsado fashilkiisa iyo waliba ku tagrifalka awoodeed uu sameeyay ilaalinta dastuurka qaranka uu jabiyay inuu iska casilo xilka hadda uu hayo sida sharci darrada uu ku joogo laba iyo in ummadda Soomaaliyeed uusan hor istaagin uusan mar kale xil u tartamin saddex in Farmaajo laga mamnuuco in mas'uuliyad heer qaran ah mar dambe lagu aamino iyo in laga reebo tartanka doorashada ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay midowga musharaxiinta bayaanka midowga musharaxiinta ayaa ugu muhiimsan in Farmaajo laga reebo tartanka doorashada uusan ka qayb galin maadaama uu wajahayo fadaaxado waaweyn oo ku saabsan xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed tababarhaan lagu qaday wadanka Eritrea kuwaas la sheegay inay ka qayb qaateen dagaaladii ka dhacay gobolka waqooyiga Ethiopia waxaana soo baxaya in 5,000 oo dhalinyaradaas ahaa in hadda xaaladoodu la laayahay nolol iyo geeri halka ay ku dambeeyaan madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Dabageed waxa uu sheegay in doorasho ka dhici doonto magaalada Beledweyne ilaa laga sameeyo hal arin oo dalbaday madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkaasi Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo warbaahinta kula hadlay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa beeshiisa u sheegay beesha xawaale hadii Beledweyne la doonayo in doorasho lagu qabto waa in marka hore yimaado Cali Guudlaabe waxa uu sheegay reer Hiiraan oo dhan ay daneynayaan in doorashada xildhibaanada federaalka qaybtooda Hiiraan lagu qabto magaalada Beledweyne balse qaarkood waxaan u soo jeedinaynaa in arintaas ay ka horeyso in madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaabe marka hore yimaado magaalada Muqdisho waxa halkan doorashada ku imaan weysay ama doorashada lagu qaban waayay waxay tahay in Cali Guudlaabe hadii loo diido magaaladani kama dhici doonto wax doorasho ah yiri hadii madaxweynaha halkan imaan waayo doorashada kama dhici karto horey waan u sheegay haddan waan ku celinayaa hadii magaalada la rabo inay noqoto nabad doorasho lagu qabto waa in la ogolaado in Cali Guudlaabe halkan uu yimaado madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Dabageed iyo hadalkiisa sii wata ayaa yiri in meeshan waxa ay doorasho ku imaan kartaa in madaxweynaha Hirshabelle uu yimaado kadibna ra'iisul wasaaraha la keenaa taas oo gabagaba ka dhigi karta in magaalada noqoto mid furan doorashada ka dhacda Yuusuf Dabageed ayaa intaas ku daray dadka reer Hiiraan ay tabasho ay qabaan tabashadooda lagu xalin karo wada hadal beesha uu ka soo jeedo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Dabageed xawaale ayaa aad u diidan maamulka Hirshabelle gaar ahaan Cali Guudlaabe inuu yimaado magaalada Beledweyne waxayna beeshaasi ku waxay ku qanci laadahay hanaanka awood qaybsiga maamulku ku dhisan yahay maalin ka hor ayay markii maleeshiyaadka Jarnaal Xuud ay qaab beeled ahaan u weerareen hase yeeshee markii dambe magaalada lagu itaal roonado oo laga saaray
maleeshiyada jarnaalkaas uu watay taasoo keentay in xaalad xasiloon magaalada ay gasho. waagaagii wararkeena qaybaha dambe soo gaarnay ee wasiir Dubba waxaa lagu eedeeyay ama lagu weeraray marna habaabinta iyo hadallada qalafsan ee inta badan warbaahinta uu siiyo taas oo dadka intooda badan ay ku soo jeediyeen Musaf Shiino oo kamid ah siyaasiyiinta xilalka ka soo qabtay Soomaaliland ayaa si adag ugu jawaabay hadallada dhawaan ka soo yeeray wasiirka warfaafinta Soomaaliya kaas oo sheegay in uu xusi doono gabar magaalada Boorama lagu xiray calanka Soomaaliyeed. Musaf Shiino ayaa sheegay in Dubba arintaas uu ku marna habaabinayo ra'yiga caamka asagoo sidoo kale uu ka sii daray xiisada ka taagan gobolkaasi sidoo kale marhabaabintiisa qayb ka tahay dhalinyarada loo qaaday Eritrea kaas ilaa hadda dawladdu aysan ka hadal. waxa uu yiri wasiir Dubba shaqo ku malan waxa ka dhacay Boorama iyo dhalinyarada la xirxiray calanka dartooda xabsi ugu jira ee waxa yahay inuu ka hadlo arrimaha xamar ka jira iyo waliba sidoo kale dhalinyarada loo qaaday Eritrea. sidoo kale waxa uu hadalkiisa sheegay in dawladda Soomaaliya ay u magacaawday Abwan Yusuf Shaaci oo ku nool magaalada Hargeysa xil taas oo sheegay inay tahay mid kala dhaawici karta arrimaha la xiriira Soomaaliya iyo Somaliland sidoo kalena halis gelin karta shakhsiyaadka reer waqooyiga ee jooga magaalada Hargeysa. Musaf ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay in Abwan Shaacir uu qabto xil lagu magacaabo dawladda Soomaaliya asagoo dhaliil u soo jeediyay xilkaasi xukuumadda Muuse Biixi oo ninkaasi fasaxday xabsiga dhigin wax dambi ah haddaad aqbasho dal cadow ah ayaad noogu hiilisay ayuu yiri Musaf oo ku sugan magaalada Hargeysa oo la hadlay warbaahinta. Soomaaliland ayaa lagu eedeynayaa in xabsiga dhigeen gabar Soomaaliyeed oo calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya xiratay kuna labisatay kaas magaalada Boorama lagu xiray ilaa haddana xabsiga ku jirta. ugu dambeyn saaxiib Abiy Ahmed ayaa jabaad la yaab leh soo saaray kadib guuldaradii ka dhacday dagaalkii Tigreega uu la galay ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia. Abiy Ahmed ayaa sheegay in dawladdiisa ay si fudud ku qoran karto 1 milyan oo dagaalyahana balse ay doonayaan in ay dhiirigeliyaan aamusnaanta iyo waliba in la hirgeliyo xabajoojin dhex marta Tigreega iyo dawladda federaalka Ethiopia. hadalka Abiy ayaa yimid kadib markii magaalada Makalla ee caasimada Tigreega ay gacanta u gashay jabhadda Tigreega ee TPLF xilli dawladdu ay ku dhawaaqday xabajoojin hal dhinaca. TPLF ayaa qabsashada Makalla ku qeexday guul military oo ay gaartay Abiy Ahmed saraakiishiisa ayaa ku qeexaya bixitaanka magaaladaasi in ay tahay xeelad dagaal. 1 milyan oo ciidamada ayaa 3 maalmood gudahooda aan ku qoran karna ciidamadaas waliba tababar aan sii karno isla markaana aan abaabuli karno ayuu yiri Abiy Ahmed oo u sheegay xildhibaanada baarlamaanka. haddii la yiraahdo ciidamada gaarka kuma filna haddii meesha maleeshiyad badan ay yimaadaan ogaada 1 bil gudahood ayaan 1 milyan oo ciidamada aan ku diyaarin karnaa. hase yeeshee Abiy ayaa sheegay in saraakiisha ay go'aansadeen in la helo wado kale oo nadiif ah oo laga fikiro dhibaatada ama dagaal dambe Ethiopia faraha la gashan. saraakiisha Tigreega ayaa axadii u jawaab rasmi ah ka bixisay baaqi xabajoojinta Abiy waxayna sheegeen in ay aqbali doonaan kaliya xabajoojin haddii la qaado ciidamada Eritrea iyo kuwa Amxaarida ah ee halkaas jooga. waxay kale ugu baaqeen hanaanka lagu xisaabtami doono Abiy iyo madaxweynaha Eritrea Siyaas Afwerki oo dambiyo dagaal geysay. Abiy kama jawaabi karno shuruudahaasi waxa uu soo wajahayaa eedeymo waaweyn ayaa lagu yiri. waxa uu sheegay in dawladda TPLF ay dhul ay qabsatay kaliya laakiin aysan jirin xasuuq ba'an oo halkaasi ka dhacay. waxay kale amaan u soo jeedin ciidamada federaalka Ethiopia ee garwaaqsadeen iskaga baxaan. ciidamada difaaca ma qaataan mushaar ku filan waxayna ay wajahayaan dagaal ayaa lagu yiri TPLF. warbixinadan ayaan ku soo koobaynaa warkeena nageynta.